magaalada dalxiiska ah ee degmada Arabsiyo ee ka tirsan gobolka Gabiley ayaa waxa si weyn looga dabaaldegay munaasabad lagu xusayo xuska dhalashada Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee bisha Mawlid ee sanadka Hijriyada 1437 munaasabadan dabaaldega ah ee dhalashada nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo lagu qabtay Hotel Arafo ee magaalada Arabsiyo ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Somaliland maamulka degmada Arabsiyo culimowdiin aqoon-yahano abwaano arday iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan xuska munaasabadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaasina boqolaal kamid ah qaybaha kala duwan ku dhaqan magaalada Arabsiyo ay dhaxlugeynayeen shaariicada wadooyinka magaalada Arabsiyo iyagoo ku dhawaaqaya saliga nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa waxa ugu horeyn munaasabadani lagu furay nashiidooyin iyo xadiisyo ka turjumaya taariikhda nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxaan maanta isku nimid dhalashada rasuulkeena weyneyno miilaad rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam wulida waxa la dhalay rasuulka alayhi salaatu wasalaam yawmul ithnain maalin isniina الثاني عشر من شهر ربيع الأول بشرى تاي لبيا طبعا بشهر ربيع الأول أيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وقت جودة يوم حسك أدونك مركي الله مركي أرلدا لله تاجي مركي حاوي آدم ملائكة يا إبليسك وحور ربي أمي أردن وحاك لله أبوري أدوني مخا سوي إله بيدي سوي وحور اللي العدي آيات كيسنا كشري إنسان كي كرامديسا أول بسيء وي حلبا أوفاها كسارا أمانا لغو قدامي أرلدا إنت عسل لغنا أمير بالو غدغي حسابتي الله تبارك والله ما أنت وحين واحتراف علينا والدبار دقينا حبيب إلهي رسول كينا عالم الوجود كأسوى صاري بشي وأسوى صاري أيين تاغنا هاي سياسة واحتفالينا أهل الإيمان أودا من أول كفر حسيه كل يدبع تدمع تقولي غير وارتا معلم تاسف رفرلية بقولنا مناسبات بقولنا نوع عيتونا بها هذا نعد عارضة يعد كهوت ماذا وهذا الإنسان شفته لكن معلم كان مولد في هذا الشيء السوق يفرح هذا القالو تبي كبتة إبليس كي كبتة xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle ayaa isaguna si qoto dheer uga waramay iftiinka iyo nolosha macaan ee diinta Islaamka iyo taariikhdii nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxay maanta halkan isugu nimid Arabsiyo oo arday nabi aan naqaanay iyo shaqaytulayo Arabsiyo ilaahay beeraheeda ha barakeeyo barbaarteeda ha barakeeyo ardaydeeda ha barakeeyo oo sheekheeda sheekh al-islaam ka sheekh Daawud cimrigiisa Allah noo dheereeyo xafladii mawlidka nabiga bilowgeedii baan maanta joognaa wadakirhum bi ayaami Ilaahi ba ilaahay quraanka ku yiri uga sheekeeyo xus maalmaha Ilaahay يوم ميلاده ويوم بعثته ويوم هجرته ويوم أنزل عليه وحاصل نظام إلهي وي مالنتي النبي قال له شيء مالنتو هاجري مالنتي قرآن لو سوتشي مالنتي مدينة تري مالنتي بدر كوكولست ومالمو دعوينا ونرشي سي كاملة ومالم والباقي المغن تاعين القصة مالمها حتى بمالمو هذا مالين هجرة ما يتمادين مالين بعثنا ما يتمادين مالين كورنا ما يتمادين حتى مالين تدرشة الجلدي وهو يدي مثلا هنا إنهم بالدامية وصلوات الله وسلامه عليه مالين تقول شيء إن إله يكتي سنة ماموس كل هذا رسولك يكتي سنة ماموس كل هذا مسلمين تأكتوا لنا كوين تهاي هو إنهم بالدامية ومركي صوم كإسمين تلويدية اللي يا رسول الله محاط الصوتا يوم الاثنين ذاك اليوم الذي ولدت فيه هو مالك أيضا ومالك عندشة أيضا بل قيمها النبي درجة أساسية مركي نصنف مركي كسور يكتم مالك حصة إننا
إن نعموينك إلهي كسيي حس سنويا لو سميو بلدو في صور الله إنه عالم كين الصومالي لاني توحيد كفوري هاي قاعدني أو مالين سيدي طبعا كميل يجاو إنه قصة تياي وحين السنوي وبحسنا وقيمة قريبة الشيء يعني قيمه إنه ليه سوسا ما هذا على حكمة تقدم بيسار عسكري وامعي إلى إنه حسوسنا أولادنا كبر بارنا برنا قيمها يقايها وأكترنا الدنيا آخرة بكلة يا نبي الله محمد وعبد الرزاق أحمد هيان الكعسي صوم نيوز تي في دقمة عرب سي